kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan kuna soo dhowaada falanqayn gaaban oonu ku eegi doono xaaladii ugu dambaysay ugu horrayn dagaalada ayaa bartoodii kasii socda halka dhexdhexaadinta beesha caalamka iyo sidoo kale midowda afrika ay sii wadaan dhexdhexaadin u dhexaysa labada dhinac ee ku dagaalamaya etoobiya waa jabhadaha mucaaradka ku ah iyo sidoo kale dhanka kale dowladda dagaalo daas ayaa sii soconaya welina looma dhigin dhegta baaqaqa ka imaanaya beesha caalamka sidoo kale ergeyga gaarka ee Afrika u saartay arrimaha dhexdhexaadinta Ethiopia ayaa gaaray maqala halkaas oo uu kula kulmay madaxda jabhadda TPLF Debretsion Gebre Michael iyo sidoo kale afayeenka jabhadda Getachew Reda arrimahaas iyo arrimo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena falanqaynta ee xaaladda Ethiopia dagaalada iyo sidoo kale heshiiska nabadda ee laga wada waanwaanta u dhaxaysa labada xoog ee isku haya waa dowladda Ethiopia iyo sidoo kale jabhada argagixisa oo ku soo duulay xukunka dowladda Ethiopia oo ay rabaan inay si xoog uga qaadaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo horaantii bilow lagu doortay dalkaas Ethiopia aan ku bilownay dagaalada ayaa maanta ka sii socday halkoodii ilaa shalaytana dagaalada ayaa socday labada dhinac ee ku dagaalamaya goobaha dagaalka ayaa sheeganaya mid walba dhankiisa guulo balse warar xaqiiqa ayaa sheegaya in maalmihii ugu dambeysay jabhadda TPLF lagaga gacan sareeyay goobaha dagaalka ee isku arkayaan jabhadda OWL jabhadda TPLF iyo sidoo kale militariga Ethiopia iyo sidoo maleeshiyaadka canfarta iyo sidoo kale maleeshiyaadka Fana jabhadda TPLF ayaa shalayto ku qaatay dagaal afar goobood ama baan idhaahdee afar tuulo oo u dhaxeeya Kimis iyo sidoo kale Dabra Burhanu dhanka jabhadda TPLF iyo OWL oo wada socda ay deegaanka canfarta goobo dagaal ku soo qaadeen shalaynimo bay ahayd markii jabhadda TPLF la sheegay in lagu jabiyay goobihii dagaalka ay soo aadeen sidoo kalena militariga Ethiopia uu soo bandhigay ciidamo ay ka qabsadeen jabhadda TPLF iyo sidoo kale OWL TPLF ayaa dasa qabsatay bishii hore balse jabhadda OWL baa iyaduna qabsatay Kimis halkaas oo ay ka soo ruqaansanayeen maalinta ka dambaysa dhanka iyo Dabra Burhani jabhadda TPLF ayaa maanta sheegtay in ay qabsadeen afar tuulo oo u dhaxaysa Kimis iyo sidoo kale Dabra Burhanu balse dhanka kale dawladda ayaan arrinkaas war ka soo saarin jabhadda TPLF ayaa sidoo kale sheegaysa inay u soo dhow yihiin magaalada Milo oo mar hore ay sheegeen inay qabsadeen balse warar xaqiiqada ka fog ahaa TPLF iyo OWL ayaa dagaalada goobaha furinta maalmihii ugu dambeysay aan ka wadin horumar dagaal sababahaas oo la sheegay inay tahay istiraatiijiyadda dagaalka ay ku hawlgalayaan muddadan iyo sidoo kale xooga kubaysan oo shacab oo halkaas teed adag u dhigay jabhadda TPLF iyo OWL oo isbahaystay bisha bilowgeedii ayaa la filayay in ay samayn doonaan horumar dagaal oo la xiriira arrimaha dagaalka iyo furimaha goobaha la isku arkayo sida ay horumarka uga sameeyeen qabsashadii Kombolja iyo sidoo kale Desa balse jabhadda TPLF iyo OWL oo wada socda ayaan maalmihii ugu dambeysay wax horumar ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan militariga dalka Ethiopia halkaas oo ay iska caabin ka sameeyeen sidoo kale ila wareedi ayaa sheegaya inay ka cabsoonayaan diyaaradaha BT oo bayraktaarka ee droneska ee iskood u kaca kuwaas oo isleeyihiin dawladda Ethiopia waxaa siisay dawladda Turkiga khalkhalkaas ku yimaaday jabhadda TPLF ayaa la sheegay inay uga sameyn laayihiin horumar dagaal oo markii hore ka sameynayeen dagaalada horumar maalmo ka hor markii telefishinka Al Jazeera uu sheegay duuliyaasha diyaaraddu in aynan ka kicin duuliyaasha dagaaladu inay iska ilaaliyaan xabado ooga imaan kara dhanka jabhadda TPLF ayay imaanaysaa marka ay dawladda Ethiopia sheegtay in jabhadda TPLF ay ku jabiyeen meel ka fog 300 kiiloomitir magaalada Addis Ababa warkaasna uu ahaa war ay ku buubuunayaan beesha caalamka argagixisada TPLF ee ku soo duushay dawladda Ethiopia waa say hadalka u dhigeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia ugu baaqay inuu si degdeg ah u xalliyo arrinta dalka Ethiopia ka taagan sheegayna in ay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed arrimaha dagaalka ee dawladda Ethiopia iyo sidoo kale jabhadda TPLF ayaa waan ka filaysay maalmihii ugu dambeysay dhanka iyo beesha caalamka sababo la xiriira war ay isla dhexmarayeen oo ahayd ra'iisul wasaaraha Ethiopia in laga qaadi doono xilka beesha caalamkuna ka qaadi doonto balse ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa Dr. Abiy Ahmed ayaa u sheegay TPLF iyo guud ahaan ururada mucaaradka iyo sidoo kale beesha caalamka Abiy Ahmed inuu ku yimaado cod shacab balse uu ku imaanin keenitaan iyo sidoo kale xoog muquuqus ayna doorteen in ka badan 40 milyan oo shacabka Ethiopia ah dagaalada jabhadda TPLF ay ku soo qaadaysa dalka Ethiopia iyo sidoo kale jabhadda OWL ayaa la sheegayaa inay dabada ka riixayaan beesha caalamka sidoo kalena ay ku taageerayaan saxaafadda iyo propagandooyin TPLF ayaa gudaha u soo gashay in ka badan 700 kiiloomitir
oo kaasoo ay kaga soo hayaameen socdaal dheer magaalada Maqale ee xarunta caasimadda gobolka Tigray. OLA iyo TPLF ayaa iskugu yimaadeen magaalada Kimis ee xarunta caasimadda gobolka Wallo, halkaas oo ay rabeen inay uga sii duulaan Dabra Burhani oo militariga dalka Ethiopia uu ka xidhay difaac adag oo lagu ilaalinayo magaalada Addis Ababa ee xarunta caasimadda dalka Ethiopia. beesha caalamka ayaa maalmo ka hor kala baxday safiirada, balse isbeddel dagaal horumarineed ayaan weli ka imaanin dhanka iyo goobihii dagaalka oo militariga Ethiopia ayaa ku sugan bartii ay horaan u joogeen. Dhanka kale beesha caalamka ayaa sii dardar gelinaysa arrimaha nabadeynta Ethiopia, sidoo kale waxaa asna dardar xoog leh ku sii wada ergeyga khaaska ah ee u soo saartay Afrika waa ergeyga khaaska ah ee u soo saartay inuu ka shaqeeyo arrimaha nabadeynta iyo xalinta Ethiopia jabhadaha colaadda ku ah OLA iyo TPLF iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Ethiopia. ergeygan ayaa maalmihii hore u tagay ra'iisul wasaaraha Ethiopia, sidoo kale tagay dalka Kenya, Djibouti, maalmo ka hor tagay magaalada Maqale ee xarunta caasimadda gobolka Tigray. Sancho oo ah wakiilka ay u soo saartay midowga Afrika in ay uu dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya dalka Ethiopia ayaa shalaynimo booqday magaalada Maqale ee xarunta caasimadda gobolka Tigray, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha TPLF ahna madaxweynaha dowlad deegaanka Tigrayga Debretsion Gebremichael iyo sidoo kale afhayeenka jabhadda TPLF Getachew Reda. wafdidan tagtay magaalada Maqala ayaa la sheegay inay la socdeen xubno kale oo weheliyo Obasanjo, kuwaasoo ka shaqayn doona arrimaha nabadeynta Ethiopia, balse waxaad moodaa maalmo asagoo nabadeynta labada dhinac ay socdaan iyo waanwaantu inuu dagaalku halkiis ka socdo. dabcan waxay u eg tahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed arrinkan inuu ka raali yahay, oo waxaa la sheegayaa ergeygan inay ka baxeen magaalada Addis Ababa ee xarunta caasimadda gobolka, halkaasoo safar gaaban oo arrimaha nabadeynta ku tageen magaalada Maqale ee xarunta caasimadda gobolka Tigray.